السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan baad ugu jeedinayaa Soomaalida, dawladda Soomaaliya, federaalka iyo dawladda maamul goboleedka Jubbaland. Anigoo ah Nabadoon Ibrahim Baardheere kana soo hadlaya wadanka USA America. Marka hore waa idin salaamay dawladda Soomaaliyeed. Waxaan idinku salaamay salaanta muslimka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Intaas markaan kaga gudbo dawladda Soomaaliya, federaalka, aqalka baarlamaanka, bulshooyinka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland. walaalaha Soomaaliyeed dawladda waxaan ka codsanaynaa dhibaatada lagu haye shacabka Soomaaliyeed waxba aan galabsanin lahaadankii ilaa abtarnaaw dadka lagu haye waa in laga joojiyaa, waa in xurnimadooda loo daayaa. baaqas waxaan u jeedinayaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Jubbaland Axmed Madoobe. waayo qof aan wili qori aan kugu dhufin habad aan kugu dhufinin haddaad maalin kasta gabadhis aad kufsanaysa oo baariis aad dhacaysa asig dhigis banaysatay maalin kasta aad dilahaysaan wax laga fiican yahay way. Soomaaliya xilliga dil waa laga soo gudbay. qof aan dagaalamin haddii maalin kasta sabab la'aan loo dilay waan ka xunahay. waxaan kala baaq u jeedinayaa dawladaha caalamka adduunweynaha United Nationska, dawladaha qaaradaha Africa ama Asia ama America, Europe, waxaan baaq u jeedinayaa oo codsan iga aan u jeedinayaa waa in dadkan la leeyahay qolada la leeyahay Soomaali weyn Bantu jareer weyne dhibaatada ay ku hayaan Soomaalida kale oo ka tirada badan. Soomaali Bantu waa dad beeraley ah, waa dad masaakiin ah, waa dad wiligood dagaal aan galin wey. waxaa lagu wadaa in la halafisiyo cadadkooda baabi'i la tirtira. annaga waxaan isku tilmaamaynaa Soomaali markaan ay muslimka intii macnaha qiimeeye oo eseeye oo dhiigis iska xaranteeya looga baahan yahay. haddii ay noqotay qofkii gaajaysan gaajo hore looga dilaayay, qofkii aan dagaalamayn dagaalamaysa aawgeed loo dilaayay. haddii adduunweynaha saas ay sharci u tahay xana loo soo caday adduunweynaha waxaan rabnaa in ilgaara xanad noo fiirisaa. dadkayna oo Soomaaliyeed Bantu oo gumaadka lagu hay sidii macnaha sidii yeedii ahaan banaama looga dildilay annaga kuma sabri karno mana ogolaan doono. United Nationska UN-ta waxaan baaq u jeedinayaa waad u jeedaan waxay maanta lagu sameeyay annaga dad dagaalamana manhin, dad macnaha oo dhibaataysan manhin, al-shabaab manhin, dhulkayni iyo beerahayni dadkayni iyo aruurtayni hortaan lagu dhamaynaya. odayaashayna markay hadlaan xabista loo taxaabaya. markii UN-ta waxaan ka codsanaynaa in ilgaar ahaan ay noo fiirisa dhibkina lagu hayay ay u dirta wafdi dhibkina lagu hayay. xariyaasha qaxooti aniga ku dhibaataysan, wadanka Soomaaliya aniga ku dhibaataysan, meel kasta adduunka aan jiro aniga ku dhibaataysan. waxaan adduunweynahan baaq u jeedinayaa dadka Bantu leeyahay jareer weyne meel kasta adduunka ay kaga nool yihiin waa in nabadgelyada xurnimadooda loo soo celiyaa, waa in dib u dejin la siiyaa, waa in dhulkooda loo horeeyaa, waa in dhulkooda faraha loo qaadaa. haddii ay loo qaadi way baaqan kale waxaan u jeedinayaa dawladda Axmed Madoobe, maamul goboleedka Axmed Madoobe. waxaan islahayn dawladdii oo goboleedsiga ugu wanaagsan yani dawladda Jubbaland aan malaynayn, laakiin maanta ayaa xaalkay dhaaf fariisatay. inta ka hor waxaan ogsoonahay Kismaayo sharci ka taagnaay, laakiin maanta waxay laga bilaabo sharci kama taagin. maalintii ninka qurba jooga ay sheegaasha ay lagu dilayay Kismaayo xornimada waa la soo celiyay Axmed Madoobe war fiican ku dhawaaqay 7 ruux halka hal maalin loo dilay. laakiin maanta marka jareer weyne 100 ruux laga dilay Axmed Madoobe haduu ka qabsaday wuxuu ugu danleey aniga ma aqaan. taasna waa ceeb ay kugu tahay sumcadaada ay dadkan ku ciyaarayaan. dawladda Soomaaliya waxaan idin ka codsanayaa in arrimahaas ay soo fargeliyaan xuquuqdii ay ku lahaayeen Jubbaland intay ka helaan beelaha jareer weyne meel qol kasta waxa noqdeen beelaha jareer weyne qol kasta waxa noqdeen xuquuqdii ay ku lahaayeen in la siiyaa maamul goboleedka maamul wanaaga wax kasta ayaga oo Kismaayo ku tirsan ay xuquuq ay u maqan tahay waa in ay ka helaan. dhiigoodana aan la banaysanin ayaan idinka codsanayaa. haddii la yeelay Soomaali wixii dhib ku dhaca dawladda Soomaaliya dawladda maamul goboleedka Kismaayo ayay ka tilisay wax dhib ku dhaca ama
يعني دجال ويل أنت كهر دجال ما قلب جرر وينه لكن سوى على ليه دقون هو دجال قل ورمالك تلقوا حلب الدجال قليل مالك تلقوا حلب الدجال قليل تبى نقول تهاي ما يجرينا ما نجري دونا حدي أرماس فرقين هو سماه وين نمكن دل وين أو ياشر حين هلان الصوت ده وين أو حقوقي أنا كلها نجوب يعني دول سومال ده أنا كلها نسي وين وهذا ويا سومالي إن معناها وهو اللي كده دونت حتى بعض الناس جاينا دونا وحن كانوا صرينا دبت كبهوتك الجوج وإن أمانكم السلطان تروينا وإن أمانكم السلطان تروينا دبت كبهوتياش كنت السنة وكبهوتياش الجوجات وحتحاول أن سوق قرن كرن أو قاعد مش كل عين هيسه جماعة غرماء كده هيسه يو أنت وإن عيجن هنده يكون قادان أنا كان ما ممكن يدي بنوصل عليان حضان أنا كان نجري وينه أنا بقى نبضون إفراهيم باردة والإذن سلامي بمان سوماليين وبان سلامي إن شاء الله متكستو معناها سوماليات أو معناها أنا حبنا نمرنا أنا نقدكتي ممكن سومر مرة نقراها ورمحان هالليني ورمحان قلب سني محان قلب سني محان هالليني ما حد تقالم ويسير لوط منها دوينها وحن باقي جينا وحن الله لاينها يا حد تقالم ويسير حشواب وقال ويسير الله لاينها يا الدوينها وحن نكوسنا ستة تقلها نوصل فرقلي حوضها البناء نوصل عليه حاله هي قوتي نجت جان وإن أمامكم السلطان جماعة غرماء كده يجوا أنت وأنا إذا سلامي سومالي حين الدجال الدجال ولا يسوق البيت حير فلا لو قد بيت دون مينة حدي أنا ما أصبح نلقى ما وين حدي كله أنا كل فيك بعد هاي كله وأنا إذا سلامي ما لنا شرف له وإذا سلام تمام